Assalaamu calaykum daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan waa saaxiibkiin Waliid Maxamed page-ka aad daawanaysana waa isla Waliid Maxamed waxaan kuu soo gudbin doonaa sheeko baraha bulshada aad u haysata maalmihii la soo dhaafay markaad muuqaalka dhammaysato waxaan kaa codsanayaa in aad like saarto si uu saaxiibo badan u gaaro waa ku mahadsantahay daawashadaada shirkadda Quman Fashion Show ayaa waxa ay qabatay tartan quruxda gabdhaha ah taas oo ay ka soo qayb galeen gabdho kala duwan oo ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka ah gabadha ku guuleysatay tartanka ay qabanaysa shirkadda Quman Fashion Show ayaa waxa ay Soomaaliya ku matali doontaa tartanka quruxda Afrika ee ka dhici doona dalka Nigeria tartankan ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb gali doona Saadiye Maxamed oo ku guuleysatay tartankii habeen hore ay qabatay shirkadda Quman Fashion Show baraha bulshada ayaa dood adag ka jirtay maalmihii la soo dhaafay waxaana dood laga keenay qaabka lagu xushay Saadiyo Muna Maxamed Diirsho oo ka mid ahayd guddigii tartanka ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da u sheegtay in waxyaabihii lagu xushay gabdhaha ay ka mid ahaayeen in gabadhu ay leedahay waji qurxoon soo jiidasho iyo weliba dhaban wanaagsan oo dheeh qurxoon sidoo kale waxyaabaha aan ku xilano waxaa ka mid ah ayay tiri diinta akhlaaqda iyo hab eegmada naxariista oo ay tiri waxyaabaha aan ku xilano qayb ayay ka ahayd guddiga tartanka waxaa ka mid ahaa rag kuwaas oo qiimeynayay sida gabdhaha ay u kala qurxoon yihiin Muno oo arintaas ka hadlaysa waxa ay tiri quruxda gabdhaha waxaa ogaan kara kaliya ragga iyaga ayaana fahansan gabdhaha sida ay u kala qurxoon yihiin taas ayaa waxay nagu riixday in aan ragga guddi ka dhigno qaybtood sidoo kale dadka ugu badan ee soo codsaday tigidhada lagu galayay goobta ay ka dhaceysay tartanka waxaa ka mid ahaa rag waana dareemi kartaa ayay tiri sida ay ragga arintaas uga soo qayb galeen sidoo kale Muno ayaa waxa ay sheegtay in aanan gabdhaha lagu xulanaynin deegaan qabiil iyo waxyaabo la mid ah baraha bulshada ayaan ku aragnaa arintaas waa been wax ka jira malahan ayay tiri Soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee gabdhahooda ay qurxoon yihiin inkastoo gabdhaha Soomaaliyeed markii uu wadanka burburay ay qaxooti ku noqdeen wadamada Yurub oo ay ku mataleen tartamada quruxda waxaa ka mid ahaa gabdhihii quruxda wadamada kale u tartamay ee asalkooda Soomaaliga ahaa Xaliime Aadan oo 2016 ku guuleysatay quruxda dalka Mareykanka tan ayaa waxay dhiirigelin u tahay gabdhaha kale ee Soomaaliyeed waa ku mahadsantahay daawashadaada magacaygu waa Waliid Maxamed